iska bilaabaynaa xildhibaan fiqiyaan jooga xildhibaan axmed meeshii noo taagnayd nooga sii wato doodii ahayd some oil iyo maxay ahayd iyo way loo siiyey shirkad noocaas. taas cali balcad baa ka hadlay xilligeedii joogay runtii waxaan wuxuu ahaa fiildi Soomaaliya bildigan batroolka aan weli la taaban marka dowladdii xilligaas jirtay oo xasan sheekh waxay ku dhiiradeen in dee sahmintan la sameeyo sahminta marka waxay u dhaxaysay waxaan u malaynayaa berigaas Puntland Cabdiweli Gaas ayaa madaxweyne ka ahaa waa la diiday ereyada Puntland marka waxay ku ekeyd area Hobyo ayay kasoo bilaabanaysay ilaa Jubbooyinka ayay ahayd xuduudda Kenya meesha badda isaga dhacdo marka intaasaa shirkaddu ay sahankeedii ku samaysay waxyaalaha xogta aan ka helay ka mid ahaa shirkaddaas Soma Oil and Gas iyo Norwegianka iyo de xiriirkaas shirkad Norwegiana samaysay sahanka runtii de dokumentiga waa la keenay oo dowladda Soomaaliya way haysaa sahankii la sameeyey waxay ahayd shirkaddaas maadaama lacag badan lacaga xoog leh ayaa shirkadaha noocaasi markay samaynayaan sahminta ayaa dowladuhu siiyaan maadaama dowladda Soomaaliya ay iska faqri ahayd oo wax badan aysan hayn waxaa lagula heshiiyey waxaan u malaynayaa in heshiiska ka mid ahayd in ka faa'iidaysiga iyo explorationka marka la samaynayo xirmooyinkaas in laga tixgeliyo shirkadda Soma Oil and Gas in laga tixgeliyo inay ahayd arrintaas ay ku qorneyd meesha in laga tixgeliyo haddii marka la samaynayo exploration markaan dhexe sida wasiirka Goodax uu sheegay shirkaddii dee dowladda Soomaaliya waa kala wareegtay dowladda cusub oo kale oo ku xigtay dowladdan farmaajo oo madaxda ka ahaa waxay khiyaar u lahayd oo choice ay khiyaar u lahayd inay dee shirkado kale iyo si kale u macaamisho laakiin meesha waxaa yimid buundada isku xiraysa arrintaas hore iyo middan in ra'iisul wasaarihii uu noqday dee ninkii hawshaas oo dhanba wadayba oo ra'iisul wasaarihi xasan cali khayran ka wadaa 3 sano iyo bar oo shuruucdan sameynayay oo maaragtay howlahan oo dhan ay socdeen dee asagoo inuu prime minister ahaa marka taasaa waxay keentay dowladdan cusub oo farmaajo iyaduna dee inay isla meeshii ay kasii wado weliba kasii horumariso oo shuruucdii batroolka iyo hay-addii batroolka iyo shuruucdii kale oo dee la xiriirtay waxyaalahaas in laga heshiiyo qaybsiga khayraadka dalka oo looga heshiiyey baydhabo shir ka dhacay 2017kii waan u malaynayaa oo la saxiixayba sida loo kala qaadanayo iyo kulli iyo ay ku qornaayeen oo ku lifaaqan sharcigan batroolka waa lagu lifaaqay heshiiskaas waxyaalaha baarlamaanka markii la marinayay loo daliilsada waxaa ka mid ahayd war dowlad goboleedyadii oo dhan way saxiixeen 2017kii way saxiixeen arrintan baydhabo shir la isugu tagay bishii June inay ahayd baan u malaynayaa 12keedii ayaa la saxiixay markaan dambe dee baarlamaanka smoothly ayay shaqadu ahayd marka Puntland isbedel maamul ayaa yimid halkaas ayaa waxaa diidmo iyo maaragtay hawlo kale iyo halkaas ay ka yimaadeen markii dambe oo sharciga la marsiinaya marka waxa yani qodobka in la dul istaago qodobkii Goodax Barre wasiirku uu sheegay waxay ahayd yani dowladdii hore way samaysay runtii wax fiican bay ahayd in la sahmiyo oo la soo ogaado laakiin shirkaddii samaysana dee lacag badan laguma heshiin laguma qasbanayn marka in shirkaddaas lala sii wada hawsha arrinta timidna waxay ahayd prime ministerkii shirkaddaas guddoomiyaha ka ahaa markaas ayaa prime minister noqday oo shaqadii halkii ka sii waday waxa cajiib kale waxay tahay oo haddana dee heshiiskan shakiga weyn ku abuuraya in lagu aamini waayo dowladda soo socota inay dee meeshii la keenay hadda in dowladda soo socoto cusub oo doorashada kadib imaanaysa in aan lagu aaminin oo nooc degdegsiima ay ku jirta arrintan
iyo wax lala dhuumanayo lala cararayo waxa shakiga keenay ay tahay wax hadda loo kala cararayna ay tahay oo dee saameyn weyn ayay doorashada ku yeelan lahayd haddii madaxda qaybo ka mid ah ay sida hadda wasiirku sheegay ay la soo istaagi lahaayeen waxbaan ka ogna runtii muran weyn baa dhici lahaa marka anugu intaasaan ku dari lahaa laakiin arrintaas waxa weeye cali oo ogaa oo joogay baa si fiican u faahfaahiyey iyo wasiir goodax waa mahadsantii عمي سؤال يرى أنا رأينا ويديو لبض حلبان ضايو غلط اسمعك سؤال حلبان على عمري حلبان أهم معنا فقه وادي السلام لبض إنه سؤال يرى رأينا إذا ويديو وحان أرقني إن نقدين أي كسميين حفيز كرز وزارها يحفيز كمدحوينها مدهولات كسر مع اللبضة بقى وأرنتنا ما أنت أصلا كفلا مسوح اللو باهي هاي إن هشيس كان إنه يها null and void dowladda Soomaaliya inay maaragtay warqad sax ah uu qoro wasiirka iyo maxaan ku yiraahdaa guddiga batroolka Somali Petroleum Agency oo uu sheegay wasiirka inay la socdeen marka heshiiska uu saxiixay ma in ay ka warqad official ah dowladda ay uga noqonayso heshiiska in la qoro miya mise social media waxaan ku aragnay intaasaa lagu dhaafayaa oo maaragtay haddana dowlad dambe oo imaan doonto waxay noqonaysaa caqabad ay la dilgarayso intaas rabinaan inaan ogaado dadkana u fasirtan insha allah ismaaciil warkii horena waa ku bilaabay twitter wax lagu qoray maxaa legal binding maaha heshiiskan la saxeexay waa heshiis dadka saxeexay ay og yihiin sababtay u saxeexeen ay u haystaan dulduleelo iyo loopholes mataqaana ay rabaan inay ku difaacaan marka dowladdu waxay u baahan tahay in si legal ah dad sharci yaqaana oo sharciyada ganacsiga yaqaana in arrintaas si dhab ah mataqaana uga jawaabaan in sharcigaas uga hortagaan haddii kale wuxuu noqon doonaa caqabad na hortaagan waqtiyada soo socda marka kuma filna dowladdu waa inay tallaabo cad oo weliba de sharci ku salaysan oo shuruucda caalamka ku salaysan oo dad aqoon leh oo yaqaana shuruucda ganacsiga shidaalka yaqaana ay kala kaashatay inay ku wajahda weliba sida ugu dhaqsiyaha badana weliba waayo wuxuu sharciga horta heshiiska la saxiix ana weli ma arag dabcan wuu lahaan doonaa isleeyahay mataqaana terms oo ogolaanaya in laga baxo amba jebin kara laakiin waxaasoo dhan waxay u baahnaan doonaan dad takhasus aqoon sharciyeed u leh inay ka howlgalaan mooye kuma filna twitter iyo beenin idaaca laga beeniyo kuma filna waxaan isleeyahay waa caqabada noqon doontaa waqtiga soo socda hadda laga hortegin xildhibaan cali waxaa ognahay waddanka baarlamaankii haddartan waa limbo situation ku jira qaarna waa lasoo doortay qaarna lama dooran oo labadii u dhexeeya hadda xildhibaanada ugu yaraan lasoo doortay koorumkoodu wuu badan yahay xitaa ugu yaraan soomaa inaad soo saartaan baaq ama xitaa inaad walaac inaad muujisaan xildhibaanadiin hadda sharciyadda dib loo soo siiyey ugu yaraan niyow dhawaaq xildhibaano meel iska qayli meel ka hadlay legal binding ma aha xitaa baarlamaankii sideedaad oo ka qayliyey sharcigii badda iyo binding noqon waayey marka arrintan waxay u baahan tahay si sharciga in dad heshiiska akriya kadibna xeerarka caalamka yaqaana inay si legal ah oga jawaabaan may uma baahna statement meel laga soo saari iyo mucaarad warqad soo saari ma xalinayso arrintan waa arrin sharci caalamiya waa heshiis caalamiya waxay u baahan tahay in si sharciga looga hortaga u baahan tahay oo koorta laga difaaci karo waxyaabahan politicalka koorta lagama difaaci karo marka arrintan waa arrin legal waa in si legal looga jawaaba dowladdani kuma filna twitter iyo jawaab beenin kuma filna waxay u baahan tahay inay sida ugu dhaqsiyaha badan leh u howlgeliso loo yaro arrintan ka hortaga waa mahadsantahay odan camay waa su-aal muhiima runtii aniga cali baa si fiican u tibaaxay waa mar walbaba dee heshiisyo howtalhamaga ayaa layska galaa hadhowtana dee costi weyn ayay soomaalida iyo dowladda soomaaliyaba ugu fadhiisataa in heshiisyadaas laga baxo oo maaragtay meel cidlaa laga soo istaago marka sidaas uu tilmaamay arrintan kuma filna haddii dee heshiiska madaxweynuhu sida uu sheegay uu wax ka ogaana oo shirkadda iyo kulli iyo dee xiriir kolley waa jirayaa dee shirkaddu lafteedu maxkamado iyo mararka qaarkeed ayagaaba naga garyeelan kara laakiin sidaas cali uu sheegay twitter iyo waxaas uma baahna xataa warqad xafiis prime ministerka xafiis madaxweyne ay soo saaraan kuma filna arrintan in heshiiska intuu keena wasiirku
waxaa muuqata in wasiirku uu isku kalsoona hadda markuu hadlayo dhaha waxaan maaragtay madaxweynaha waa kala dhiilgaraynayaa waa laga dejinayaa culays yar oo hadda social media ayuu maaragtay arrintani isaga fujinayay marka weli mugdi weyn baa jira oo lacagta hadda la sheegayo 7 milyan I don't think inay hadda shirkadu iska soo shubayso maadaama hadda war ka yimid saxiixii 4 beri oo haystay wasiirku maalinkii la saxiixay ilaa iyo hadda 4 maalmood baa u dhaxaysay oo 4taas beri lafteedu waxbaa lagu maqnaa ama qaabkii waxaan loo maarayn lahaa ama loo soo gudbin lahaa ayaa lagu maqnaa waxaa laga yaabaa xiriiro tiro badan oo hoose inay socdeen marka waxaasoo dhami maalmaha soo socda imaan doonaan laakiin sidaas cali uu sheegay dad lawyerisa in ay hawshan inta galaan ayagu sida ugu fiican ugu damage yar aysan u xayirayn hadhowto dowladda soo socotaa inay hawshan ka sii wada meeshii oo dalkan looga faa'iideeyay khayraadkiisa si saxa oo transparency ah oo cadaalada oo aysan mugdi ku jirin in hawshaas sidaas loo galo ayaan aaminsanahay sidaas cali uu sheegaan ku raacsanahay marka baashaas dheelleel hadda kolley qortay noo suran tahay intay noo surnaan doonto gaar ahaan 7daas xirmo waa laga yaabaa xirmooyinka kale oo dhan waa madax bannaan yihiin laakiin 7daas xirmo inta heshiiskaasi qorta uu noo surnaan doono kolley dadka sharci yaqaanada ah sheegi doono waa mahadsantiin xildhibaan aad u mahadsan tahay waxaana la joogo ciise dholowaa oo asagana sharci yaqaan arrimahan oo shidaalka ah ciise kusoo dhawaaw kulley waa maqashaa u malaynaa dooda caawa meeshay ay taagan tahay marka waxaan rabnay in dhinaca sharciyanka this contract oo hadda wasiirka uu galay bindingkeeda maxaa laga qaban karaa sidaan oo kale waxaan ugu dhaceen balsoo dhawow hodan waa mahadsan tahay ragga iyo dumarka meesha ku jirana waan salaamayaa dhammaantiin anigu 3 arrimood baan hadeer isleeyahay xoogga saar midda ugu horeysa oo aan isleeyahay muhiim weeye waxa weeye wasiirku isagu sovereign maaha oo isagu macnaha maaha nin iska madax bannaan oo wuxuu doono isagu iska samayn karaa waddanku wuxuu leeyahay haddeer madaxweyne kumeel gaara iyo prime minister isaguna kumeel gaara xil sii hayaa cabinet baana jira legally production sharing agreementku waxaa marka hore saxiixa qofka dowladdu ay uga dhigtay mas-uulka uga dhigtay oo ah wasiirka waxaa la keenaa laakiin cabinetka oo laga approve garaya kadibna waxaa la geeyaa baarlamaanka hadba sida sharcigu u jiro weeye hadda anigoo kale waa markaan joogay puntland markaan saxiixo ama horeyba haddii loo saxiixay wax kabedel markii lagu sameeyo waxaa la geyn jiray baarlamaanka oo laga approve garayn jiray sababta waxaa ku yiri qodob oranaya in production sharing agreementku valid noqoto oo ay sharci noqoto baarlamaanku waa inuu ratification ku sameeyaa marka baarlamaanku ratification kuma samayn karo unless cabinetku uu soo gudbiyo marka indirectly bay waxay noqonaysaa wasiirkaas soo saxiixaya cabinetku keenaya waa laga munaaqishoonaya waa la baasgaraynaya baarlamaanka la geynaya waa laga baasgaraynaya annaga saasay ahayd hadda 2 house baa jiray labadiiba waa dhaceen dad badan baa lasoo doortay dad badan baa jooga legalityga marka way fiican tahay in la helo sida uu sheegayay fiqi iyo ninka la yiraahdo cali saaxiibkay labada ninba waa salaamaya way habboon tahay in la helo legal advice laakiin expenditure haddeer la galo oo kharaj la galo wax macnaha ma samaynayso because legalka soomaalidu xataa ay taqaan dadka aqoonta arrintan u leh baa ku filan wasiir baa wax saxiixay wasiirku sovereign maaha legally maaha isagu that whatever he signs goes maaha laakiin waxaa loo baahan yahay in haddeer labada
labada nin oo isagu accountable u yahay oo muxuu ahaa madaxweynaha iyo prime ministerka labaduba xafiiskoodii qoraalay ka soo saareen ay ku diidayeen aniga aragtidayda daad safai way ku filan tahay midaasi laakiin more haddii la rabo in la sii adkeeyo way fiican tahay in muxuu ahaa cabinetka prime minister ku geeyo muxuu ahaa issuega cabinetku uu disapproval ku sameeyo both processka loo maray oo dee isagu wuxuu leeyahay madaxweynuhu way la ogaa laakiin hadduusan madaxweynuhu la ogeyn head of governmentna uu yahay muxuu ahaa prime ministerka oo isaguna uusan la ogeyn I'm not sure siday valid u noqonayso laakiin labada warqadood ay soo saareen waxaan jeclaan lahaa anigu in lagu daro in cabinet ku fariisto tomorrow morning wixii ka jooga ay markaa reject gareeyaan agreementka kambaniyadana la inform gareeyo oo directly loo inform gareeyo warqad loo diro la yiraahdo contractka gaadheen legalina lagu cadeeyo siday invalid ay u tahay iyadoo la raacayo systemka Soomaaliyeed oo jira oo muxuu ahaa constitutionka haduu yahay production sharing agreementka iyada ruuxeeda waxa ku qoran la arko sababta production sharing agreementka lagu qoraa for inay iyadu noqoto valid ama iyadu ay noqoto mid sax ah oo heshiis lagu yahay oo soconaysa waa inay madha processka anigu aan dawladdu I'm not sure inay leedahay qof petroleum lawyer u ah wasaaradda in qofka isagana la helo oo isaguna comment ka baxsho oo legal advice ka baxsho midda labaad oo anigu aan jeclaan lahayn aan ku daro waxa weeye aniga iyo cali iyo raga kale iyo dad kalena waanu ku kala fikir duwanahay arrintan waa arrinta ma hadiiba aad halka Soomaalidu maanta aragto inay gaadho ama siyaasadda ha ahaato ama wax kale ha ahaatee saldhig arrimahan petroleumka waxa u ah in Soomaali ku heshiiso waxaan yaale see loo maamulayaa sees wax loo qaybsanaya heshiisyadii la galay waa la wada diiday Puntland ahaan dawladda Puntland waxbay ka saxiixday laakiin waxaan ogahay in dawladdu intii ka dameysay ayan sharcigana Somali Petroleum ayana aaminsanay policy-ga laga soo saarayna aaminsanay raalina ka ahayn sidaa darteed khatartay leedahay dawladda federaalka oo centerka ah in la isugu keeno awoodaha Soomaaliya oo dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin aragnay farmaajo wuxuu sameynayaan hadda aragnay haddeer wiilkan wuxuu sameynayo oo isagu iskaga takrifalayaan aragnay sidaa darteed waxa loo baahan yahay Soomaali waxay isugu timi federal in state walba goonidiisa isu maamulo arrimaha shidaalka anigu waxaan aaminsanahay horeyna u aaminsanahay waa in laga saaraa gacanta dawladda federaalka ah haddii kale waxaan oo kala dhacaya horey baan u ogeyn Soomaaliya dawladnimadeeda inay saa u dhacdo siyaad barre boobay wixii ka dameeyana waa ogeyn natural resource-ka Soomaaliya wuxuu ku wanaagsan yahay aniga aragtidayda inuu qaybsan yahay oo ku jiro gacmaha dawlad goboleedyada oo dawlad goboleedyada lagu support gareeyo oo iyagu ku shaqeeyaan oo policy-ga dawladda federaalka ay dejiso legalina dawladaha dawlad goboleedyadu ay rangareeyaan oo arrintii wadaan oo awoodeeda leeyihiin oo contractkii galaan sida dawladaha federaalka ama Australia anigu hadda aan joogaa ama ha noqoto muxuu ahaa Mareykanka oo kale ama Canada oo kale dawladda federaalka ay waxay soo gudbinaysaa policy-ga guud laakiin state-ka ayaa rangareynaya wixii lagu heshiiyey oo dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu ay ku heshiiyeen halkaasaa laga jaan qaadaya dawladda federaalka gacanta in loo gasho awoodaha Soomaaliya khatarta ay leedahay haddeer ay idin muuqataa horeyna waa u soo aragnay haddeerna waa aragnaa marka anigu intaasaan anigu hadalkii ku soo koobi lahaa ra'iisul wasaarihii hore UK in la yiraahdo Michael Howard shirkadda hadda markaad fiirisid company house-ka ee aad ka fiirisid UK shirkadda weli waa active inkastoo wax shaqo aysan qabanin oo xisaab celin ay samaysay 2021 inay xisaab celin samaysay memberskeeda iyo directorskeeda iyo kulligood inta badan way iscasileen ninba hadda weli directorka ah Michael Howard waa iscasilay
waxaan arrintan u xusayaa waxay tahay in dowladda ingiriiska markaasi ay aad iyo aad ay involve uga tahay arrimaha soomaaliya oo aad u danaynaysay xukuumaddii David Cameron oo qiyaastii macnihii monthly amaba every quarterly ay communication la sameynaysa dowladda xasan sheekh muhiimad gaar ayay siinayeen arrintan maxay ahayd shidaalka iyo resourceka waddanka nasiib darro dowladdii xasan saddex prime minister baa shaqaysay waqtiyadoodii oo gaabnaa whatever happened siday ku dhacday marka wax badan oo weyn oo u suuragalay oo aan oo only credit la qaadan karo waxay ahaa seismic surveyga la suubiyey oo intii ilaa iyo hobyo la sameeyey taasoo markeeda naftirkeeda dhaxal gala hadda marka timingka la saxeexay bahashan ayaa waxay keenaysaa conflict of interest iyo nasiib darrada weyn oo hadda ummadda soomaaliyeed haysata madaxdeeda markii ay dadkeedii ay khiyaanayso iyo institutionadii oo aan adkayn isla xisaabtan oo aan jirin waxaana daayo hadal qof yiri aan aad iyo aad ugu raaxsanahay waxaan cali baa yidhi xildhibaan cali baa yidhi waxaan twitterka lagu soo qoray kulligood binding ma aha ilaa official laga dhigo sababtoo ahna dhaqan waxaa jira oo nasiib darra soomaalida hadda anaga caali inoo ah every case ama every issue waxa weeyaan 1 week ama 2 week lifetime buu leeyahay intaa kadib waa la wada ilaabayaa oo macnii business as usual dadka way ilaabayaan hawshooda hoos bay ka soconaysaa waxaa jirta in auction lagu qabanayay London in 2019 inay ahayd baan u malaynayaa February oo aad iyo aad dadka intay isu abaabuleen laga hortagay yani si oo daahfurnaan ma ahayn cabsi weyn oo laga qabay markaa in dadkaan ay raadinayeen interest markaa xasan khayr ah ra'iisul wasaare ahaa arrintii marka waa la waday laakiin concern badan baa jiray waxaana maqlay marka in qaarkood dib looga naqday laakiin arrintii ma aysan dhimanin warayskii oo wasiirka aan maqlayna caawa wuxuu sheegaya in waxaan ay soo socdeen timingka lagu soo beegay ayaa suspicious ah oo una baahan macnihii in la dabagalo arrintan marka arrin ah u baahan waa baarlamaanka soo socda haddii hadda xukuumaddan hadda joogto oo ra'iisul wasaaraha warqadda ka soo saaray in arrintan waxba uusan ka ogeyn walaalkii cali ciise la qabaa in xukuumadda ay fariisato oo ay arrintan ay tiraahdo null and void waxba kama ogin ay warqad official noqoto baarlamaanka soo socdana loo gudbiyo markuu yimaado free sessionka ugu horreeya waxyaabaha ugu horreeya uu ka dooda ay noqoto haddii kale legally binding ma noqonayso dhibaatada jirta marka waxay tahay ummadda soomaalida way u baahan tahay in shidaal lasoo saaro waa u baahannahay khayraadkan oo hadda oo laga wada guurayo dadka adduunyadii waxay u guuraysaa green economy baabuurta electric bay noqonayaan renewable energy waa loo wada gudbaya haddii aan gas wixii kasoo hara basoolkii wax weyn noo taraay mar looma baahnaan doono in wadda looga faa'iideeyo way fiican tahay laakiin nasiib darro xukuumadihii hadda jiray iyo micnihii kuwii horeba yani duruuf walbaba ha ahaatee mid gaar wax u raadinaya mid culays gaar haysta iyo mid lacag raadinaya ha ahaatee in aan si dhab ah oo niyad sami ah aan resource sharingkana looga shaqaynin wax walbana ay ku salaysan tahay qofka meesha fadhiya go and grab waxaad heli kartid qaado jaabkana ku shubo meeshana ku joog ama isaga bax marka complete overhaul legal systemka anaga aan haysano ayuu u baahan yahay qof alla qofkii markaasi xilka ka dega waxyaabihii uu haleeyay oo dhan inaan looga harno loo daba socdo si mar dambe aanay u dhicin in maxay ahayday isdabamaris ay dhacdo marka waxaan kusoo gabagabeynaa parliamentarianka walaalaha ayagana waa kolley waa ila qabaan baan u malaynayaa in arrintani aynay valid noqon doonin without parliament maxay endorsement or rejection waa mahadsantiin intaasaan kusoo gabagabeynaya mahadsantiin waa mahadsan tahay xildhibaan xasan waxaan rabay keliya inaan dadka la wadaago news hadda soo dhacay oo ah ma garanayo dhab ahaantiisa laakiin facebook wareega guddiga xalinta khilaafaadka ayaa kursigii uu ku fadhiyey wasiir cabdirashiid wasiirka batroolka ee hadda looga soo guuleystay ayuu hakiyey waana soo faara halka kursi ee la hakiyey weeyaan sida doorashadan u bilaabatay qaybtii dambe ee markii shirkii madasha uu dhacay marka iyada xisaabtiina isku darsan kartaan marka waxaan rabaa inaan ciise ku noqdo deetana waqti badanaa ku jirnay dadka hadda mikrofoonada haystaan siinayna waan soo gabagabeynayna markaas halo may maqlaysaan ha ciise soo gaabi adoo mahadsan waa mahadsantahay arrinta horta sideedaba ma raba inaan markan ku soo cesho laakiin arrintu waxay ka dilmaysaa
wasiirku accountable wuxuu yahay first and foremost from administrative law side wuxuu accountable u yahay prime ministerka ama contract ha helo production sharing agreement ka ahayd ama yuusan helin waxaa la rabaa in prime ministerka iyo dowladdu ay intay fariisato ay diido oo ka shaqayso sidii loo diidi lahaa midda labaad waxa weeye laga raalli ahaado arrintan bilowgeedii wasiirka waa dhegaystay aniga iyo cali balcadna waanu ka wada warhaynaayo dadkii isku haystay arrintan baan ka mid ahay labada dowladda puntlandna intaa way ka qaylin jirtay arrintan dowladda federaalka aanu way wadi basically haddaa rabto inay xaaraan inay tahay inaa ogaato waxa weeye dowladda waxaa u ahaa waaga la taliye arrimaha petroleumka xasan khayr isagoo ah director som oil and gas directorna wuxuu ka yahay companygii dowladdana advisor buu ahaa oo annagu waanu iska warqabnaa waa wada joognay waxaan marka processkan socday muddada politically waxaa rabaa in wax laga bedelo ciise xasan cali khayre la taliyo dowladda uma ahayn haddaad caddeen wayso waa kaa sugaynaa waa garta way iska warhaynaa labadeenu way iska warhaynaa waan ogeyn iyo of course waan ogahay inaadan odhanayn yes he was laakiin anna waa ogaa dadkoo dhanna waa ogay kambaniyadana way ogaayeen ultimately marka waxaa loo baahan yahay sense in la isugu yimaado oo dadka soomaaliya ay isugu yimaadaan war see baan ugu heshiinaa arrintan si arrintaanu u socoto anigu waxaan qabaa arrintan petroleumka waqtigu waa sii xumaanaya in dadka soomaalida ahi go-aan laga gaaro sidii loogu heshiin lahaa sidii loo horumarin lahaa sidii meesha ay hadda joogto looga sii qaadi lahaa laakiin marka ugu horreysa muhiim waxa ah bal horta waxaan in dibadda la dhigo oo la joojiyo waxay ku xiran tahay anigu aad baan ugu faraxsanay madaxweynaha iyo prime ministerka xafiisyadoodii inay ka hadleen laakiin waxa loo baahan yahay subaxdii markuu waagu beriyo moor inay qabtaan marka intaasaan hadalkayga kusoo koobay xildhibaan cali haddaad hadalka hadda sii dhamaystiris waxa yar horta waa arrinta aniga ciise aan ku kala duwana horta waa waxyaaba mataqaanaa ii sheeg waa wax oo dowladnimada waxaa aadnaa dhinacii waxaa aadnaa ii sheegay waddamadan federaalkooda uu very looseka yahay oo sida abudabi oo kaleenta mataqaanaa abudabi ayada madax bannaan tahay shidaalkeeda iyo dubay kala madax bannaan yihiin bise dee waddan masaakiin waxaan nahay kabasigiisu yari aan nahay oo mataqaan dowlad dhaxan u baahanaa in waxaan ay noo maamusho marka waa runtii weli lagama heshiin iyadoon laga heshiin bay puntland ku dheedo heshiisyo fara badan oo shidaal ay gashay oo ciise uu qayb ka ahaa dowladda intay timid aan intaan ka ogahay heshiis ay gashay oo oil marka laga reebo sismiga laga reebo heshiis ay gashay ma jiro waxa hadda batroolkan laga baara la leeyahay waa meel 20 kilomitir badda gudaha loo gelayo dee marka waan ognahay dee maamul goboleedna inaanu capacity noocaasa dhul noocaasa inuu mataqaanaa dowladda soomaalida aan awood u lahaynba iska daa mataqaan maamul goboleed hirshabelle iyo galmudug iyo puntland iyo wax lamida in 20 kilomitir badda gudaheeda oil ku yaala ay wax ka maamulaan marka arrintan waa runtiis waa in laga heshiiyaa dabcan inay hal qolo keliya iska overasmaysa maaha waan aaminsanahay in baydhabo looga heshiiyey heshiis la qoray cabdiweligaas wax ka saxeexay dee marka haddii puntland dee maamulka yimaadaba kii hore waxay uu saxeexay uu diidayo dee taasu dowladnimo ma aha marka ani waxaan aaminsanahay arrintan batroolka bsa ilaa xad dowladdan hadda joogta inta jirtay maamul goboleedyada way ka heshiiyeen heshiis bay ku saxeexeen sharcigii baarlamaanka la keenin waxaa lagu soo lifaaqay heshiiskii ay ku yaalaan saxiixiyada ay soo saxeexay maamul goboleedyada oo cabdiweligaas uu qayb ka ahaa waan ogahay cabdi saaxiibkay ciise inaanu ku faraxsanayn heshiiska la saxeexay laakiin dee maamulkii markaa joogaa saxeexay tan kale ciise wuxuu ka dhawaajiyey in wasiirka aanu ahayn sovereign sidaas la mid ah dee dowlad goboleedyadu ayaguna sovereign maaha marka dowladda dhexe in waxaan ayadeeda bacdamaa wixii oo heshiisyo caalamiya la gelayo ayadu ay gasho waxaan isleeyahay ilaa xad in laga heshiiyo waa muhiim khilaafkan soo jiitamayay oo ah resource sharingka ciisena uu qayb weyn ka ahaa in laga gudbo waa loo baahan yahay sidii looga gudbi karana waxa waaye in la wada hadlo oo laga heshiiyo ay noqonaysaa laakiin arrinta hadda noo taagan oo ah heshiiskan la galay welina waa ku celinaa mar labaad dabcan ko horta waxay ku xiran tahay in aad loo fahmo sharciga batroolka waxa uu dhigayo
talabaad waxay ku xiran tahay in BSA-ga qoladan la yiraahdo SBA-ga Somali Petroleum Agency-ga awoodda ay leedahay iyo awoodda saxiixa iskale heshiiska ay gasho ma final ba ma baarlamaan buu u baahan yahay saan qiyaasayo baarlamaan uma baahna saan qiyaasayo golo wasiir uma baahna waxaan qiyaasayaa in hay-adda awood badan la siiyaan qiyaasayaa mataqaanaa sharcigan lagu degdegay oo labada aqal ordka lagu marsiiyey inuu wax badan fududeyn doonaa umalayn doonaa marka dowladda weli waxay u baahan tahay inay hesho legal advice inay hesho u baahan tahay uma baahna mataqaanaa warqad ka soo baxdo xafiiska prime ministerka iyo madaxweynaha keliya kuma filna Twitter kuma filna marka legal waxay u baahan tahay advice ay u baahan tahay iyadoo la fiirinayo sharcigeena dowladdeena iyo kan caalamiga ah waxa ay ka qabaan waayo waxaan heshiiska la galnay waa dowlad weyn oo Maraykan ah iyo kambani wakiil ka yahay ma mataqaan wax sahlan ma marka weli waxaan qabaa in dowladdu ay u baahan tahay talaabo degdeg inay qaado waxaan suurtagal waxa inay ku qoriyaan laga yaabaa waqti gaaban in looga noqon karo haddii waqtiga gaaban uu naga hoos baxo oo la dhaafo waxaa laga yaabaa it will cost us mataqaanaa more marka weli waxaan qabaa in dowladda si fiican loogu qayliyo la yiraahdo mataqaanaa arrintan xildhibaan intaa dhamaysan waxaan rabaa maxaa ku qasbi kara wasiirka wuxuu leeyahay madaxweynaha wuu ila ogaa isaa idiray weliba wuxuu leeyahay xafiiskayga ka wada shaqaynayni si toosa xafiiskiisa aan ugu xirnaa maxaa ku qasbaa madaxweynaha inuu wasiirka iraahdo maba ogiba ma aragno mana aqaan inuu iraahdo أنا أرث ما أمسني وزير كبترولك يقدميها شركة بترولك الصومالية يكون هيجيس إن إسراعان أي لندن تجان أي وهذا اللي قالان شركة كل أجنبية أنا الدول الصومالية إن وحبك أوجين وحاسلي حوجا وأرين حوجا عقلي أنا سامحين متقان إنه خمست مركا سيدو وزير كشيء وحن قياسي السوشيال ميديا بوق كتاجن بحوجا ير دعوة موية وحاسلي يعني نكان كمنا ديردين tan kalentana u malayn maayo in heshiis noocan uu geli karay cabdirashiid iyadoo asoo aan haysanin kalsooni fara badan oo mataqaanaa ama qoraal ama wax la mid ah asoo haysan marka anigu waa aaminsanahay wasiirku in wax lala ogaa mahadsan xildhibaan cali buuqa social mediada waa sii wadeen haddiiba ay cabsi gelinaysa madaxda waa soo gebagabeynaynaa waxaan rabaa 2 qofood bootaan iyo geeljir deetana akhyaarta kale usoo noqonaya soo gaabiya geeljira ku bilaabaya waa mahadsantihiin commenti oo dhinaca sharciga aanu sharci yaqaan ma ahi laakiin waxaan ogahay dastuurku inuu ka sareeyo sharci kasta oo la sameeyo marka dastuurka haddii ay ku qoran tahay sharci kasta oo dowladdu ay gasho dad ajnabiya ay la gasho waa in baarlamaanku baas gareeyaa xataa haddii uu jiro sharcigaas la baas gareeyey oo petroleumka ku taxalluqa soo lama dhihi karo sharcigaas laftiisaadan valid ahayn marka waa ku raacsanahay cali cumar in looyaro loo bixiyo oo hela macnaha sharci midda kale dowladdu hadday dhacday oo madaxweynuhu dhaktartar soo saaray oo yiri heshiis lama geli karo taas lafteeda laga yaabo inay qodob noqoto ay looyaradu isticmaalaan marka waa ku raacsanahay laakiin in arrintaas meel la saaro oo dad oo sharci yaqaana inta loo xil saaro ay meel uga soo haraan talabaad waxaa jirta arrin oo soomaalida aysan sii wadwadin oo tan oo kale ahayd oo dhinaca badda kalluumaysiga oo dhan loo saxiixay shirkada ajnabiga gaar ahaan Chinese-ka oo sidaas kale musuqmaasuq oo wax khasnada dowladda ku soo dhacday aysan jirinin iyo wax la faafiyey oo hoos wuxuu iska dhamaysan ilaa waa China waxaan ma ogta marka taas lafteedu soo arrin kale oo dhibaato ah in la ogaado heshiiskaas iyo wuxuu yahay weliba taas waxaa la saxiixay intii dowladdu ay sharciyada haysatay marka ma laga yaabaa inuu tanba kasii dhib badan yahay midkaasina waxaan kaloo ku dari lahaa macnaha hadda waxaa la sheegay lacago badan oo systemka ku jira oo aan sharci ahayn ciidamadan beledweyne la geynayo diyaaradahan la kireynayo wax budgetka dowladdu aysan shaqo ku lahayn marka lacagtan ma laga yaabaa tii fishariga iyo tan already inay systemka ay corruptionka ku wado oo waxaan hadda la isticmaalayo ay tahay su'aal fiican waaye waxaan waa mahadsantahay waqtigaa nooga 6 minutes aan oo hadhay waxaan rabaa bootaan inaan siiyo asalaamu calaykum waa salaamaya dhammaan akhyaarta ku jira maaragtay barnaamijkan waa salaamaya saaxiibkay camay iyo walaashay hodan iyo garow online oo barnaamijka host gareeyey waqtiga oo yar awgiis
waxaan rabaa comment inaan ka dhigto niman yahow horta dadka Soomaalida oo aad u dhul jecel iyo bad iyo macnihii hantidaas ay leeyihiin oo dee waaba la isku laayaa kilomitraa la isku laayaa ani waxay ila tahay inaan commentiga ka dhigo angle aan ka fiirino wax hanti aan wada leenahay ama madaxweynaha ha ahaado ama wasiir ha ahaado qof walbaba xilliga aan ku jirno xilli waxa waaye doorasho xilliga doorashada ahna dee stability heshiis lagu gala maba yaalaba xataa ama madaxweynuhu ha la ogaado ama aysan la ogaanin marxaladan waxa socdo waxa dhacayo oo dhan waxa waaye hashan naas adag iyo weedha maxaa kulmiyey waa wax maaragtay midmadow ku jiraan marka waxaan bogaadin hadda saacada iyadoo late night tahay waxaa arkaysaa ilaa 300 oo qof online ah waana dad dareen ku jiro oo raba inay ogaadaan xaaladda dalku meesha uu marayo oo haddeer aanu ka soo baxnay kiiskii badda oo waqti badan jiitamayay oo dhaqaalo badan iyo buuq badan iyo weli ay hawshiisii taagan tahay oo dadka ay leeyihiin weli wax badan baa naga maqan xaqiiqatan marka siyaasadda waxaa la rabaa in aysan kallifin in la ilaawo maaragtay waxa aan leenahay oo dalkeena ah oo aan hal dhinac uga soo jeensano waa la ismucaadaradi karaa waa la tartami karaa laakiinse inaysan gaarin in lagu ciyaaro waxyaabo intaasoo sano iyo intaasoo halgan iyo intaasoo qof soo leedeen waa wax maaragtay aan si sahlan ugu soo helin dee dadkii noo soo dagaalamaya naga horreeyayna waxay noqonayaan dad maaragtay tacab khasaaray oo dadka ay u dagaalamayeen maantay misqaala daratin wixii lagu soo baabay u sahlanaya marka discussionka sida hadda walaalka Aamin sheegay halganka iyo buuqaas oo wadayna sababtoo ah adduunka casriga maanta jira platformyadan ee discussionadan waxay tagayaan miisaska wada hadalka iyo siyaasadda iyo waxayna abuurayaan in wax la isweydiiyo qof maaragtay afdhabaan dhab ayar wax la meel maraya ma jiro intaasaan ku dari lahaa aad u mahadsantihiin waxaan rabay inaan soo gabagabayno waxaan oo hartay 3 daqiiqo xildhibaan cali iyo xildhibaan axmed xildhibaan cali may waxaan ku dari lahaa ma jiraan oo hal mar aan ka jawaabo su'aal hadal uu jeediyey ninka ka horreeyey oo ahaa in dastuurka ay ku qoran tahay in sharci aan baarlamaanka soo marin baarlamaanka meel dastuurka meel ay kaga qoran tahay ma jirta mataqaana heshiis dowladda ay gasho dhan in baarlamaanka la wada keeno marka heshiiska la rabaa marka la saxiixayo inay ku qornaato heshiiskan wuxuu effective noqonaa marka baarlamaanka ansixiyo haddaan ay ku qornayn wuxuu noqonayaa waa isla markaas mataqaana yuu noqonayaa effective waxaa kaliya muhiim ah inuu saxiixay qof legally awood u leh inuu saxiixo marka sharciyada commercialka waxaan ogeyn in wasiirka batroolka iyo madaxa SBA ay ku filan yihiin yaan ogeyn iyo inay u baahan yihiin delegation inuu ka yimaado madaxweynaha iyo prime ministerka iyo wasiirka arrimaha dibadda sida shuruucda caadiga oo bilateralka wadamadu ay kala saxiixdaan waxa kaliya dowlad u saxiixi kara waa madaxweynaha iyo prime ministerka iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo haddii wasiir kale uu wato delegation warqad mataqaa wakaalasha mataqaa hadduu wato wuu saxiixi karaa for example sida cabdiraxmaan cabdishakuur oo kaleeto waagu saxiixaya heshiiskii badda wakaalad iyo wuxuu ka watay mataqaa prime ministerka mana asoo wasiirka qorsheynta muusan saxiixi karin laakiin wakaaladuu watay marka wasiirka qorsheynta wasiirka hadda jooga batroolka waxaan ogeyn markuu saxiixayo heshiis noocan oo kaleenta inuu u baahan yahay wakaalad iyo inuu ku fahmo waxaan dhan waa wax legal issue waaye wax mataqaana oo qiyaasteedi iyo mataqaana iyo qiyaas qofka ku filan maaha waa wax u baahan in looyaro waxaan aqoon u leh ay ka hadlaan marka dowladdu waxaan isleeyahay in lagu qasbo waa mataqaana si uraqsiya badan leh inay legal advice arrintan la xiriira ay u hesho weliba dee wax oo Soomaali ku kawan maaha waa wax caalami ah marka shuruuc marka looyaro caalami u baahan tahay xitaa isma lihin mataqaana looyaradeena gudaha noo jooga waa ku filan yahay xitaa aniga ma aaminsan marka waxaan isleeyahay arrintan waa arrin very serious u baahan mataqaana in si degdeg wax looga qabto waa mahadsan tahay xildhibaan axmed daqiiqadan noo hadhay cami waa mahadsan tahay daqiiqadaas iyo khiyaarta kale meeshaan kulley dood fiican baa ka dhacday doodda waxaa runtii dee waa lagu kala aragti duwanaanayaa waxaan khayraadkan Soomaaliya ilaahay ku manaystay oo gabaabsiga adduunka ku sii ah isticmaalkooda in laga faa'iideysto marka taas doodihii hadda soo maray laakiin hadda midda taagan waxay tahay ani intaan ka ogahay sharciga batroolku production sharing agreementiga uma baahna golo wasiiro iyo golo baarlamaan midna sharcigii la ansixiyey oo labada aqal ee baarlamaanka maray
ayaa u ogolaanaya wasiirku inuu soo saxiixo asagii hay'adiisa batroolkuba marka haddana sharciga dib baan ugu laabtay sidaasuuna hadda ugu qornaa marka runtii waa sidaan usoo sheegnay batroolka waxaa ku qoran qodobka 14aad qodobka 4aad ku qoran in batroolku yahay hantida ummadda Soomaaliyeed dowladda federaalka Soomaaliyana ay mas'uul ka tahay sidaas ayuu ugu qoran yahay marka dowladda federaalka ahayd ee mas'uuliyadda siisay sharciga gudihiisa isku siisay ayaa hadda xafiisyadeedii u waaweynaa ay ka soo horjeedaan production sharing agreement-ida shirkadaha loo saxiixayana ayaga ayaa iska soo celin kara sida sharcigu ku qoran yahay sharcigu hadda u qoran yahay ayaga iska soo celin kare hadda meelna kuma xusnayn in dowladda Soomaaliya ama wasaaraddii saxiixday ay dib ayadu uga noqon karto meelna kuma arkin hadda intaan ka arkay intaan hawshan ku jiraan meel ka akhrinayay sharcigi marka runtii waa arrin aad iyo sidaas la sheegayba dadkaas sharci yaqaanada u baahan inay maaragtay eegaan sharciga Soomaaliya batroolka iyo isla eegaan iyo waxa la saxiixay kadibna sida ugu fiican oo looga bixi karo arrintaas in maaragtay looga baxo aad iyo aad baan u mahadsantihiin waa mahadsan tahay